kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa mar kale iyo falanqaynta wararka dunida aad kala socon jirteen Maamus TV. qodobada aad maanta ama caawba aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqday Suudaan xilli wadankaasi uu wajahayo mudaharaadyo iyo qalalaaso siyaasadeed. ujeedka safarka Abiy Ahmed iyo waxyaabaha laga filan karo barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan. warbixin hor u dhacay soo saaran Imaaraadka Sacuudiga iyo Norway oo ku saabsan weerarkii lagu qaaday maraakiibtii shidaalka qaaday Sacuudiga ku sugnaa xeebaha Imaaraadka ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weeraradaasi. barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan. midowga Afrika waxay hakiyeen wada shaqayntii Suudaan iyo kamid ahaanshaha Suudaan ee ururka kadib markii dad badan lagu laayay rabshado ka dhacay wararkii ugu dambeeyay Suudaan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka caalamka. qodobadaas iyo kuwa kale xiiso leh ayaa daawadayaasha qiimaha leh ku daawan doontaan. dabcan waa maalinimo Jimcaha 7 bisha 6 2019. daawadayaal aan ku bilaabo. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa booqasho hal maalin ah ku tagay Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo golaha kumeel gaarka ee talada wadanka iyo isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddelka ee mucaaradka. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta ka degay caasimadda Suudaan ee Khartoum. ujeedka safarkiisa ayaa ah in la dhexdhexaadiyo ciidanka militariga ee talada wadanka iyo kooxaha mucaaradka. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubnaha militariga ugu sarreeya kuwaas oo wadanka xukumayay ilaa bishii Abriil markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Suudaan Umar al-Bashir. safarkiisa ayaa ku soo beegmaya iyadoo midowga Afrika ay hakiyeen wada shaqayntii ururka la lahaa Suudaan waxayna shuruud ku xidheen in xiriirkaasi aan la soo celin doonin ilaa inta laga helayo xukuumad shacab ah. warbixin ay soo saareen Sacuudiga, Norway iyo Imaaraadka waxay ku sheegeen in weeraradii lagu qaaday maraakiibtii Sacuudiga lahaa ee shidaalka qaadaya ee ku sugnaa xeebaha Imaaraadku ay ahaayeen kuwo aad loo soo qorsheeyay oo si farsamo heer sare ah loo fuliyay. sidoo kale waxay sheegeen in weerarada noocan oo kale ay fulin karaan dawlado kaliya aysan fulin karin ururo, laakiin ma aysan sheegin dawladda ka dambeysay. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iiraan inay ka dambeyso weeraradaasi iyadoona Iiraan iska fogeysay inay ka dambeysay weeraradaasi lagu qaaday maraakiibta shidaalka qaada ee dhacay 12 May. sidoo kale saddexda dawladood waxay warbixintooda horudhaca u gudbiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana la sugayay tallaabada ku habboon ee hoggaanku qaadi doono. midowga Afrika ayaa sheegay inay hakiyeen wada shaqayntii xukuumadda Suudaan kadib iyo kamid ahaanshaha Suudaan ee ururka midowga Afrika sida lagu daabacay barta Twitter-ka. sidoo kale midowga Afrika waxay sheegeen in la soo celin doonin xiriirkaasi ilaa xukuumad shacab ah xukunka la wareegto. go'aankan ayaa ku soo beegmaya kadib markii kulan ka dhacay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ugu yaraan 113 qof ayaa ku dhintay in ka badan 500 way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen midowga dhakhaatiirta Suudaan iyadoona hogaamiyaasha isbedel doonku ay ku hanjabeen inay sii